laakiin waxa iga sii macnaha waxyaabaha oo runtii aan ka naxay waxa kamid ah inuu tusaale u soo qaato tusaalooyin aad u xun oo dilaya xataa diinta islaamka iyo damiirka gabdhaha dilay ninkan marka macnaha waxaan ka naxay xataa waxyaabaha ugu badan aniga xataa caydeedii waxaas ma fiirin waxa ugu daran oo ka naxay waxa waaye qof Soomaaliya oo dhadiglaan nin Soomaali oo dhadiglaan inuu jiro qaacidada uma jirin macnaha ani saan arko waa fikirkayga waayo ka garanayn laakiin majaajilista diinta inuu ku xadgudbo la iskuma hayo laakiin fikirkiisa kale wuxuu nin majaajilista oo gabadhiiba hoos gabadhiisa la hadlaysay xaaskiisa meesha uu ama telefoon kulaas oo la hadlaysay waxaana la dhihi karaa marka dhinacyo kale loo fiiriyo ninkaas excuse loo sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta badan oo adduunka meel kastood ka joogtaan cimrigeena caafimaadkeena awlaadina Allah barakeeyo waa safiirka islaamka oo salaan diiran hawada inii soo marinaya maantay waxa martii noo ah mar labaad ka soo muuqanaya safiirka islaamka media ama channel hadba saad u taqaanid walaalkeen Afraale Sufyaan Sheekh Ahmed وبرامج خاصة ما دام السوشيال ميديا ودحجلي وحبذا أو السوشيال ميديا كجرنا وأوجيهاي أيام واحد جعلاني بالحنتي سهرت مموجة مسوا أوجيهاي مركبت سفيان سود والله بركيه كسر سفير كإسلامك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما سنتهي عن سلام رمائنا عن سلامه داودياشنا سفير كإسلامك ما قاعد قرح بدن ويه marka meel dabcan laga barto diinta islaamka iyo waxyaabaha la xiriira dabcan markii hore la bilaabay ustaado waxaad ogtahay wuxuu leeyahay mucaarad iyo muxaafid labadaba way leeyihiin naam marka waxa ay antan dambe aad u batay markaad barnaamijkan bilowday oo soo gashay waxa aad u batay dumarku waa lagu yaqaanay waana dhici kartaa inay xogaan xamaasad u geyso way dhici kartay absolutely laakiin ودادان اسمليسنين anigu aan ka maleysay dib aan dib qaybta ugu dambeysaan ka faalo doonaan kaga hadli doonaa muuqaalka laakiin qaybtan in adiga ka wareystay waxaan rab waxay tahay rag waxa jiray oo ayaantan dambe taariikh 23 hal maalin soo wada galsheen laba nin dabcan nin magaciis inaan sheego mar rabo iska caamo oo waxaan ka sheega ma garanayo oo qaybta dambe asaga wax hadli doona laakiin inaad mucaarad yeelatay oo mucaaradkaay ee xataa rag noqdeen oo rag xataa si qaldan ee ku aflagaateeyeen oo social media hadda ay dhaxtaalo oo si lagu aflagaadeynay lagu caayay ay hadda meel xun marayso horta ma la socotaa waxaan ogahay fulaxantii ma moogo waxaan ogahay dabcan waa arkay laba qof baan arkay saan aan malaynayo wax ka badan ma arkin taasna mucaarad lama yiraahdo mucaaradkaygu mucaarad ma lihi arinteedu waa fiican tahay labada qof oo arkana runtii waxyaabaha iga cajabiyay waxa kamid oo la yaabay anigu isma lahayn wadankeena Soomaaliya ayaa waxa jooga ama ragga Soomaaliya waxa ku jira dhadiglayaal isma aan lahayn huwa ka نوجل إرجاس عفوا دقيقة ودقة إرجا لغوي هذا اللغة الإنجليزية كلغوي هذا feminist ونهرجا أو آمن سن أما أكاد على سن تاي إنه دريمي كروسيد الدمر كدريمان فهم كرو واحد جعليهين فهم كرو واحد نعبيهين فهم كرو مسير كوجرة معناه وحياها عن كم غلي نين كم إذا رجعس واحد أهد دمر كو إنه لجورسيد ونعبيهين معناها وحياها بدل رنتي أنا هذا كل علي كريم أنا مجاكو مجا نبيه وانين أنجرانينو أنا نسيت أنجرانيو طبعا ما يا لما لهن وإسجرانيا طبعا وإسوجي هاي وورجرا ومقالة يالا ووح أصله سمي طبعا وولالكي نين صاحبكي وانقرانيو بدبادة جنال عم عبد الله فاروق نيلي رادوي مركا قابكو هادلي طبعا إلى يو لح قضبان كقري أو قاب عن أهان شخص أهان قريبا كدبسدا جرتو دبتي أنيجا أو قاب أهان وهادلي هذه تقص قصيصة وحوهي wuxuu soo bandhigay raaxadiisi iyo wanaagiisi laakiin wixii uu dib ku qabayso ma bandhigin taa wuu yiri mar
waxaan anigoo runtii waa ka yeelaya anoon jeclayn inaan magac sheego siyaasadayda nin mutacalim ahoo rabay inuu bulsho hogaamiyaan ahay iguma jirto macnaha inaan magac sheego wax walba bulshada ka soo baxa laakiin waxa xusida kaliyoon raba meeshaas inaan xuso waxay tahay wuxuu ku dheeraaday ninka isagoo hadda maadaama magaciisa aad sheegtay wuxuu ku dheeraaday inuu ifiyo waxyaabaha xunxunka ifshaa u sii ina diinta islaamka mamnuucay ka tahay macnaha inaad faafisid wixii xun diinta islaamka lama ogola ifshaa u sii waa shay xun waa shay qabiixa waa shay diinta islaamka ka baxsan waxaan kaloo aaminsanahay in uusan macnaha wuxuu yiri wuxuu sameeyay waa mubaax sunna ma dabcan luqada ka qaldantay ma diintu si fiican u aqoonin inuu soo kala saaro dabcan mubaax sunna wax la yiraahdo waa looga fadhiyaa midaas waa mid kale to macnaha wuxuu sheegay macnaha anigu waxa iga sheego waa caatay iyo caatada lagan ku bixiya caatadu ma aha macnaha bilaash kuma imaan hadda ina iska fadhiima dabaal jiimad macnaha caatada laga lagu bixiya dadka oo caatada oo jirkoodu dhisayna waa ogyihiin wuxuu yahay laakiin waxa iga sii macnaha waxyaabaha oo runtii aan ka naxay waxa kamid ah inuu tusaale u soo qaato tusaalooyin aad u xun oo dilaya xataa diinta islaamka iyo damiirka gabdhaha dilaya anigu kuma celi karo ma dhihi karo warkaas oo wuxuu yiri laakiin waa wax macnaha intuu bulsho soo dhex fadhiistay inuu tusaalaha noocaas u soo qaato gabdhaheena Soomaaliyeed waa wax aad looga xun yahay ay ku tahay gabdhaheena Soomaaliyeed diinta islaamkana waxay ku tahay xumo waxaan jeclahay walaalkaas inuu retraction uu sameeyo oo ka laabto arintaas Allah ku barakeeyo waxaan ku daraa marka ujeedada aan u socdo dhanaad iga soo leexisay oo ahayd dhadigle wax la yiraahdo dhadigle waxa la yiraahdaa wadamadaas westernka markaan joogno waxa leeyahay feminist ama el feminismo waxay leeyihiin dad rag iyo dumarba iskugu jira oo aaminsan dumarkuna waa dumar oo dumarku way ogyihiin waxay yihiin laakiin rag waxa jira aaminsan in ay dumarka fahamsan yihiin dareenka dumarku kale leeyihiin sida dumarku wax u dareemayaan ninkan marka macnaha waxaan ka nahay xataa waxyaabaha ugu badan aniga xataa caydeedii waxaas ma fiirin wax ugu daran oo ka nahay waxa waaye qof Soomaaliya oo dhadiglaan nin Soomaali oo dhadiglaan inuu jiro qaacidada ugu jir waxyaabaha ugu soo baxay cusub ay ka mid tahay ninka kaleeto runtii ninka kaleeto oo aad sheegayso aniga fikirkayga iyo aragtidayda macnaha diinta islaamku waxa gudbay oo kaas waa si gooniya diinta islaamku waxa gudbay laakiin shakhsiyada kaleeto waxa kaleeto nin majaajilaysta waa macnaha ani saan arko waa fikirkayga waayo ka garanayn laakiin majaajilista diinta inuu ku xadgudbo iskuma hayo laakiin fikirkiisa kale wuxuu nin majaajilista oo gabadhiiba hoos gabadhiisa la hadlaysay xaaskiisa meesha uu ama telefoon kulaas oo la hadlaysay waxaana la dhihi karaa marka dhinacyo kale loo fiiriyo ninkaas excuse loo sameeyo waxa la dhihi karaa wuxuu ka turjumayay ragga qaarkood dhibka haysta ayuu ka turjumayay oo macnaha rag saas loo amrahay inay jiraan fikirka noocaas ka turjumayay labadoodana waxaad muddo runtii kaasa ila roon ani haba ku xadgudub diinta islaamka laakiin kaasa xoogan moodaa inuu wali nin Soomaaliya oo because ninkaas dhadigle waa la dhihi karaa laakiin dhadigle ma aha because macnaha waa naagteedii iyo amraysa wixii igu darnaa markaan soo koobo waxay ahayd in aan arko nin Soomaali oo dhadigla waa shay runtii aad u foolxun waa shay qabiixa waa dhaqamadii westernka waa dhaqamada shaadiintu ay isticmaasho in adigu dumarkii sii fidnaysidood tiraadid anoo nin raga ku dareemayo adiga intay kugu tiirsadaan aad u horkacdid wadadii macnaha xumeedo aad faafisid waxa la macnaha ninkaas waxaan kula yaabay wax tusaale kasta oo soo qaatay waxa uu soo qaatay wixii xuma hal mar xataa anigu wuxuu igu eedeeyay ninkan wanaagii kaliya ka hadlay war diinta islaamka waxa nala faray waa inaan wanaaga ka hadal diinta islaamka wixii xun aan ka hadlay fuxshin noloma dirsan dadka uu ka hadlayo waxa sameeyana waa minority waa dad aad u yar dad aad u yar macnaha hadii maanta la yiraahdo xumaantaas uu tiriyay oo faraha badan inta macnaha ku sugani aad u yaryihiin marka hadii adoo nin rajul oo islaam sheeganaya aad noqotay dhadigla aad noqotay oo hadana aad ka hadasho wixii xumaa runtii waa calaamad xun oo ku soo socota bulshadeena ustaadii dabcan ninka aan aqaano aniga oo garanayo dabcan magac wadaad wataa ninkan aan garanayno magac wadaad wataa anigu markaas ay ugu horeysay laakiin qaabkan kuma aan garanaynin inuu diintiisa u dhax galo oo qof shakhsi ku dhiirado inuu caayo xogaa halkaas aad baan uga xumaaday markaan dhageystay ficiladiisa iyo soo caaytamayo iyo macnaha aayadii uu sheegay sax aayadaas way jirtaa uu yiri uu waafaqsan yahay marka hadii lambar kullu asaga lagu xiray oo kulul yahay xogaa waxa ka yara fiicneed inuu yara adkaysto aan difaac marka ninkaas wax yar anu aan difaac markii ugu horeysay uu warka bilaabay wuxuu ku bilaabay statement tuduc ah oo uu yiri
ninkan waxaan ku arki jiray asagoo calanka ku dhagan oo saas leh gacantu saas yiri macnaha waxaad moodaa marka caadifad kaleeto inay ku jirto ambaartaba ayadana waa macquul oo u sameynayna aayada quraankaana fasirkeeda waxa moodaa wuxuu ka soo qaatay labadii qaybood oo nafyiga ahayd qaybtii saxda ahayd aayada quraanka marka Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyo wuxuu ku bilaabay sidoo quraanka marka Allah subhanahu wa ta'ala wixii rasuulku soo dejiyo wax lagu bilaabo ugu muhiimsan al-awla wax lagu bilaabo waa shuruuda markaas kadib la keenay waxa la yiri guursada 2 3 afar laba laga bilaabo hal laga ma bilaabo aayad quraanka isma markaas waxa la yiri hadaan cabsataan shuruudaas marka waxa waa shakhsi goonihi apply ku tahay ma aha dadka oo dhan ma it applies waxay ku u taalaa shakhsigu marka uu xaaladda Allah subhanahu wa ta'ala qalbigiisa uu cabsado inuusan cadaalad sameey karin hadaadan cabsanin adoo Allah subhanahu wa ta'ala uu ogyahay inaadan cadaalad sameey karin ila ilaaha kitaabka aayada kulku sheegay moogtahay ma sameey kartaan hadaad si ugu dadaan ha uga taginina wala tadruha kal muallaq balse waxa igu dareed ninka halka jiray waxaan aad ugu cudur daarayna in horta caama yahay ninku laakiin fariintan u dirayna dabcan fariintan gaari doontan waa isleeyahay fariintan u dirayna waxay tahay walaalkay dambi weyn oo ka kala diinta islaamka had gudub weyn oo u geystay diinta islaamka xadiisyadii iyo aayadihii dhan uu ku tuntay macnaha asoo qancinaya daraadeed gabdhihii ama gabar la hadlaysa ama gabdho kale asoo qancinaya daraadeed ayuu ku xad gudbay diinta islaamka marka meeshaas waxaan leeyahay fariintan u diray waxay tahay walaalkay oo nagu qasabtay inaan muuqaalkan soo duubo oo aan anigu ka codsado walaalkay waxay tahay in uu walaalkay ka toobad keena arinka uu ku dhaqaaqay balse ninkan waxaan leenahay asagana dabcan wixii adigu ina cafis u fidiso xagaaga labada dhinacba waxa xagaagaba labadaba cafis wax alla waxay yiraahdeen waa cafis Allah ku barakeeyo waqtiga iyo qiimaha aad nasiisay oo nagu soo hortay oo nala soo fariisatay oo nagala qayb qaadatay barnaamijkan qaaska ah waan kaaga mahad celinaynaa cimrigaaga caafimaadkaaga awlaadaada Allah barakeeyo inta ayaan jeclaanay inaan ku soo koobno intaan dib dambe isaga imaan doono wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh